السلام عليكم. سنة جورة وعندما أنا مدة الصوماليات من اللي بتشوفتين Happy Independence Day. Soomaaliya Djibouti Somaliland أنا أنت بواكس وجدة waxaan ilaahay sanad guura wacan sanadadii u dambeeyay umada baadiga aanu sanad guuraha sabab jira awgeed ayaana ugu dalbaadigin dadku badanaa markay wax u dalbaadageen horta wax qurux badan baa loo dalbaadagaa inaad gumayso ka madax banaanaato inaad u dalbaadigtaa waa wax qurux badan laakiin wadciga ku jirna hadda xaaliyan gumaystihii markii laga madax banaanaaday maxay dadku yani maxaa la hayaa maanta natiijo ah oo wanaagsan dadku gumaystakii ka daran bay galeen qabiil bay galeen qabiil inay isku kala qaadqaadan qabiil inay isku gumaystaan qabiil inay isku yasaan qabiil in wax 4.5 la yiraahdo oo qabiilada qaar lagu yasaya in la samaysto yani footprintkii aw nagaga tagay basamaadkii gumaystu inaga tagay ayaan ilaa alaanka ku jirnaa oo ahayd فرق تسد يعني divide and rule wax la yiraahdo gumaysto dadka u isticmaali jiray qabaayil budadka u kala qaadqaaday xuduudu loo kala sameeyay Soomaaliya oo dhan tiiba la sii adkeeyay la sii xoojiyay qabiil lagu sii dabaqay halkii oo inaga tagay meel ka daran baan maanta joognaa يعني dagaal iyo qax iyo murugo iyo kala daadsanaan adduunka daafihiisa يعني ay Soomaalidu ku sugan yihiin bar ku suganahay sanad ku xiga ama marba ku xigta Rajabeel baa la sii qaadaya because waxaad arkaysaa say wax walba u socdaan xukum qabiil ku salaysan waxa weeye xukaam aan ilaahay ummadda uga cabsanay shacabkii waxba fara badan dhibaatooyin badan baa yani dhulkii ka jira anigu in la dalbaadago oo wax fiican markuu jiro baa si fiican u dalbaadagi kartaa laakiin when you see wadciga xaaliyan ku jirno Soomaaliya haddaan nahay runtii wax loo dalbaadaga maahan anigu oran karaa halkii gumaystu inaga tagay meel ka daran baan maanta joognaa inaad xorriyad hesho waa wax fiican laakiinse halkii markii hore aan taagnay gumaystu inaga tagay meel ka qurux badan inaan joogno ayaan runtii jeclaan lahaa inaan aragno hadii aan Soomaali nahay walaahi ummadahan la joogno way nala yaabaan dad dalbaadagaya iyo wadciga dhulkeeni ka jiro cid walba iska ogsoon tahay runtii wax indhaha la iska qaban karaa aanan ahayn runtii waxaan rajaynaynaa inaan sidan maanta nahay si ka wanaagsan aan muxuu haayay insha Allah يعني وضعي كقرح بدنه رجع في عن يعني إلهي كرجال مرة ربنا حريصي إلهي لقى مقصته ضد استجعال أو حدود لهين أو نومات الصومالي مقعد الصومالي ده لشدة قوة إنت إن أنا هلا وحب فرق بدن بديرين كيا ميبي هذا أنا بقول وين عروت هذول هلان أنا إلهي كرجالنا إن شاء الله لكن وضعي كان هذا الصومالي ده كجر ترونتين واحد بدل اللي جبته أي قرح بدن من أنور لها وضعي أنكو دل بدك أنكو فرحنا أو رنتي أدو فرحنا إن أنكون يتصمنا هاي رنتي inaan helo ayaa fiican laakiin in halkii gumaystu inaga tagay maanta meel ka sii daran aan joogno xuduudihi ay noo sameeyay si adkayno oo qabiilku si adkayno qabiil walba calan leeyahay la iskala qaadqaadayo la siyasayo qabiil oo faanayo maxay baa nahay yani wax adduunka iminka halka la joogo iyo halka inagu joogno wakaafiye kala dheeri runtii intaasaan jecelahay inaan la qaybsado abani salaamay dhawaad assalaamu calaykum